nasiib wanaag ay maanta noqotay 21 cisho 21 xildhibaan in lagu daro. bilowgii bisha sagaalaad aynu soo dhaafnay ayaa degmada afmadow waxaa gaaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale oo qorshahoodu ahaa dhismaha golaha deegaanka ee degmada afmadow. wafdiga gaaray afmadow ayaa waxaa horkacayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland General Maxamed Warsame Darwiish, waxaana kamid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland, qaar kamid ah ururka dhalinyarada iyo mas'uuliyiin kale. afmadow oo ahayd degmada nasiibka u yeelatay inay noqoto degmada koobaad ee laga hirgeliyo dhismaha golaha deegaanka ayaa waxaa shantii bishan tagay wafdi ka kooban xildhibaanada federaalka Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka Jubbaland oo hawshan korjoogta ka ahaa. tagitaanka wafdiga kadib 6 bisha ayay ahayd markii ay wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland iyo guddiga doorashooyinku ay tababar u fureen ergada dooran doonta golaha deegaanka afmadow, waxayna taasi bilow u noqotay shaqada looga fadhiyo guddiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland oo ahayd hoggaanka shaqadan. guddiga loo magacaabay ka shaqaynta hawshan ayaa tababaro joogto ah u qabanayay ergada, odayaasha iyo musharaxiinta si looga dhaadhiciyo faa'iidada ay leedahay dhismaha golaha deegaanka oo wax weyn ka bedeli doona hanaanka degmada afmadow. 7 bisha ayay ahayd markii ay doorashada golaha deegaanka ay ka qabsoontay degmada afmadow, taasi oo ahayd qaybta ugu muhiimsan ee shaqada loo tagay degmada afmadow, waxayna taasi jaantus u noqotay hanaan shaqo oo golaha deegaanka afmadow waxay intaas kadib noqotay degmadii ugu horeysay ee nasiibka u yeelatay helidda golo deegaan oo ka shaqeeya horumarinta iyo jiritaanka degmada si ay tartan ula gasho degmooyinka dalka. maalin kadib oo ku beegan 8 bisha ayaa loo dhaariyay golaha deegaanka xilkooda si ay ugu adeegaan bulshadooda si hufan kana shaqeeyaan arrimaha degmada. haddaba si aan xog dheeraad ah uga ogaano arrimahaasi oo faahfaahsan waxaan waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeelanay Sheekh Daahir Axmed Cabdullaahi oo ahaa gudoomiyihii guddiga dhismaha golaha deegaanka ee degmada afmadow.